Soomaaliyeed ee tumaal bay u qoran tahay waa wiil walaalkeena waa wiil inala siman waa wiil Soomaali ah waa wiil inuu waxina dheer yahay mooyaane aynan maarta dhihi karin maanta 1% buu inaga hooseeya wuu naga Soomaalisan yihiin waliba oo reerahaasi waa dad Soomaali bayura waa native of Somal waa dadka rasmiga ah ee loogu yimi Soomaaliya meel baan ka nimidnay iyo qoys baan ka soo jeednaa iyo carab baan asal ku leenahay ma dhahan iyagu waa original of Somali people marka runta loo hadlo dee qof walba raygiisu ka hadlaya qof walba idiyadiisu ka hadlaya haddana siday runta tahay waaqica saxda ah Soomaali wax dheeri ma jirto waa dhaqan kan waalan maad aragtay caadada ah caadooyin badan oo dambi ahaa baa jiray oo awalba lagu soo jiray caadooyinkii hore hala raaciyo oo kayskan waxaan dhihi lahaa dhalinyarada hadda soo socda gabdhaha iyo wiilasha waxaan ha ka gudbeen waa maasan tahay Safiyo udgoonay soo dhow inaad waa dhawa jirso seeta hawlaan aad baan u fiicanahay adiga seeta baay maasha Allah ku fiicanahay والله reerka sanaka xalsi Soomaaliya dhana ka xalsiisay adduunka aan jeclaa been sheegan waligeed nin cida sadahela waa ku dhigi la cidida la ii doona dhila adigoo ah tumaalada saa u jeclaa adigoo ah waa ku waligeed ma arag wax dooqaaga ma aho dooqayga waa waan jeclaa adigoo ah abaay la tacaaruf in akramakum ma taaganahay adigoo ah anigoo habar gidir عير رأي أيان له بسكرة أنت رأي أيان نوع كريعيه كرسين شيء وين داونه ما شاء الله لا تهاي فرح سنة فكرك أنا قبتي ألبان فرح سنة ما دام أتكبر غير كايا تهاي وأتولي بكفرح سنة تهاي غير كستة الصومالي أنت بورسن كرتو ويلش إيه سنة غير كستة الصومالي مريباني أنا قبيل كيجا aan jeclahay waxa soo raaca dadkaas dad kala maray soreeraha kale isma gashaan ani horta been sheegay adduunka waxa uu jeclaa wiil hawiye inaan goorsado haddaan waayo maxamed gargaarte ma dhibaan ama toban nooc walba dadkaas waan jeclahay laakiin qabiil kale ma rabaan ما يهتقف عن متهيدو قف عن وحنا كوهين وحان إصلاح قبل أنه قبل البحث الدين تنسفع عن برتيو ما شاء الله قبل تربية في على صوت تربية ما شاء الله طول صوت تربية وأسرت هاي تمال بهداد لنا وان قاتل لكن ريري كان يقتقي وحي لم يتريري أدور نهايو كان ريري كان قاتل تمال بان كتقي محايا ريرو كلام وحبا محمد ضدحن مجرد إدرس Soomaaliya dhowrta way wada fiican tahay ما شاء الله waa dad fiican waa dadkayga laakiin qabiilkayga Soomaali fiican maxaa kala dooranaysaa ma qabiil oonan rabinaa jiro oo Soomaali wax ku jira qabiil aan jeclayn waliga hadduu xataa waa weydiiya xataa markii qofka salaam halka saytahay oo dhaho waa weydiina hadduu qabiilkaas sheegto bisoo ogeeya la hawla wala quwwata xataa walaaltinimo u xiriiriyo ربي يسر ولا تعسر عونك اوكي مدام كويديه أنا أقول كلا هذا وحنا كسر جيلا ريرك أدي أنا نعبين ريرك أنا نعبته كلام كسر جيلا أنا جعلين با بيرسونالي تيجي قفاد ولا سبان إلهي بك عصر قبلها وهم حشمية ما يقولون إلهي أنا أقول لك حتى حكى صمين والله رنت ربي يقول شعل بيمشي كري waxa ma guursatay marka guur ma soo martay dad badan ay xumaadaan laga yaabaa laakiin dadku ku sheegay dunida walaaltinimada dunida ugu wacaan haddii qofkaas aan u haayo maalintuu dadkaas noqdo salaan iyo darisnimo waa isku keen dambeesaa qul kunu hijabatan wahdi waa dadna weliga ay xumaanin waa dad xataa weliba ehel dad aan hawaay dadkaas weligoodna ma arkin wax xumaatadooda idris reerka ha weydiin gabadhaas ما شاء الله اوكي anyway هدان كويديو عصبة حتى هذيك هذا ما تكون سينا يعني وحنا أنا كويديو قول مصمرت أباي ما يواسينا على السنة واسينا لكن دفك مكان قاعد ما إلهي إنك تعيش هاي أكو سهلو
wiilkaas cilmigeeda iyo meesha ku saaran caafimaadka dadkiisa ninkaaga waa nisugu jeclaa duceynaya ilaahay ku jeclaa ya wiilkaas meesha ku saaran dadkiisa waa jeclaa dadkaas walaa ma aqaani ilaahay kuma qalbiyana u sahlo jeclaa dadkaas ilaahay ma aqaan kuma saa u sahlo nin tumaal ilaahay kuma sahlo abba soo dhow gacmo furan ku soo dhow xaasnimada talaalo adiga walaa cunsuriyad baa taa baa cunsuriyad baa taa ya gabadha jooskeeda ka dhashay adi naftirkaaga adaa cunsuriya ma fahamte maxaa la lahaa gudoomiye idris gabadhu jooskeeda ka dhashay qofka biniaadamkan waxaa fiican aragtidiisa in la tixgeliyo ma ogtaha maya jos maahane gabadha nacayb bay ku darto waxay taagan tahay qofka haddaan jeclaa xitaa uu saaxiibkay ahay xitaa waan nacaabay ku tiri maya waa ogahay laakiin waxaa laga yaabaa fiiri walaal waxaa laga yaabaa gabadhan dhibaato badan inay jirto ma ogtaha wax walba waxaa sababa ma ogtahay marka gabadhan muxuma fikirkeeday ka dhiibatay good ma fahamte marka qofka biniaadam waa maasita abaayo walaa dhibaato ima geysto dadkaas dhibaato dad ii geysta ma ahan ani dhibaato iima geysan laakiin ma ka heli khalaas waa dhamaatay tumaal boy qabtay soomaalida dhaqanka waa dhaqan hay soo dhow aniga kuma nacay mar walba ku jeclahay gabadhii reer ayaan soo dhow abaay mar walba idris ciyaartaygana safiya adwaanada waa salaamay هي أنا سوق بني أشرفي هي أوكي والله بالله يتالله يا إلهي يا رسول كيسي يقان idrisow aniyahow markaan xaqiiqdan ka hadlo hadda tusaale kale hawiyo kale markii guurka la yiraahdo aniyahow dadka habar gidir xoogaa ugu roon markaan ani arkay dadka hadda badan waxaan arkay dad badan oo reeraheena ah oo isguursad moogtahay aniga hadda kula hadlaayo hadda habar gidir waxay iga qabaan adiga ilaa 6 gabdhood iga qabaan ma fahamtay si sharaf leh oo familka face to face la isku fadhiistay waa la siiyay wax barbaleen ma fahamtay laakiin xoogaa waxaad u moodaa dadka kale hawiyaha kale xoogaa inay baashi ay safahansaneen sida ay habar gidir oo ilbaxsantaa u meel baxsana si fiican marka ayagana waxaan rajeynaya insha allah inay kale noqdaan qabiilka ay ka tagaan waxyaalahan qaarkood ay ka tagaan dee soomaali waa soomaali ma fahamte xagga diintana loo batay insha allah ما شاء الله I hope inay qaateen waanadaada gabar baan soo qabanaya fikirkeeda hadday ka dhiibanayso ilaahay ummadeena waxa weeyaan xaqa ha tusiyo 2023 ba hadda dhalanaysa waxay ku dhagan yihiin waxa weeyaan reer hebel lagama guursanayo reer hebel baan guursanaya maxaa ay galcaaniga amal macamba ii dhaam macamba meel walba ka qaninto waa dhanaan warani camba ii ma dhaam camba waa ii cambe maxaa waa run badu waa isku dhadhan weeyaan qabiilkeeda maxaa ay galay cambaha meesha ka goosto waa dhanaan safiir su'aal ma wadi karaa ayadoo raali ها abayo aad u maasan tahay waxaan ku weydiiyey adiga gabdho ma ku joogaan ها way jooga waa qaangaara miya ها gabdho badan baa ii jooga intee ku nool yihiin halkan joogo qaar baa ila jooga qaarna Afrika ii jooga ها musharaxan ahay haddii hadda aniga nin calaf doonaan ahay sidee u aragtaa shuruud la'aan ayadoo tahay gabadha adiga dhashay oo adiga aas dhigi karta gabadhan waa gabar macquul ah iskaan bartid dee haddaan isfahno adiga muran la'aan gabadhaas inaan guursado see kula ta adiga shakhsiyaan way fiican tahay laakiin hadhihin reerkii iyo wixii aan la soo tashanaya sababtoo adiga waxaa tahay gabar lagu daydo gabar macquul ah marka hadda gabadhaadaan u baahanahay horta waa su'aal wanaagsan kuma odhanayo cid baan la soo tashanayaa iyo cid baan soo weydiinaya gabadheed horta aabbay leedahay aabaheed baa magaalada jooga wadaawda aabaheed anu dee horta ma nikaaxin karo laakiin gabadhaydu hadday adig ku keensato ood soo shukaansato ood gabadhayda u soo gogol fadhiisato of course within a heartbeat baan kugu siinayaa kaasi hadal ma laha okay aad u maadsanta laakiin maadaama aan gabadhiisa aqoon adigu dee qof macquula tahay ma dhici kartaa gabadhaadii inaa xiriir isku keen xiriirisid aad tiraahdo isbarta haddaa isfahantaan ahlan wa sahlan haddiina isfahmin dee ardulahi waasac ma dhici kartaa taas horta gabdhahayga ani halkan ay ku koreen ay ku dhasheen aan joogo USA
waa gabdho broken Soomaali ku hadlo Soomaaligoodu xataa uunan perfect ahayn oo de gabdhaha halkan jooga hooyo wiil baan ku siiyey iyo wiil baan ku barayaa lama ma odhan yaqaanin karo ma yaqaaniin saad hadda ii sheegtana nin xaasas badan soo maray baa tahay oo dee adi laftirkaaga waad ka nambar weyn tahay gabdhahayga ma fahanti markaan kula kaftamo laakiin wallaahi markaan kaftanka ka saaro gabadhaydu gabooyo reerkay doonto hadday ka keensato wiil waan siinaya والله marka dalka أبايو la jooga ani caruurtaydu 0.5kay ku jiraan qaarkood qaar waa hawiye qaarna waa carabta Soomaalida de carabtii hadda waxa lagu riixay waxa la raaciyay shanta number 5 ay ku jiraan marka أوكي qabiil ma yaqaaniin qabyaalad ma yaqaaniin wiil Soomaali waa wiil Soomaali wiil kasta oo maxaan ku dhahay beesha gabooyo reer ku doonaha ka soo jeeda gabadheeda caawa la soo heshiiyo keento waa qasamu bi aayaatillaah dodohdii baa noqonaya sidaan wiil kastoo Soomaaliya ka yeeli lahaana waan ka yeelaya أوكي محما كلي هذا الكلام هذا في عينها لكن نيد هذا الله أعلم ما فهمت لكن حقيقة niyadayda waan kuu sheegay niyadayda waan هذا ما ستا جست حتى أنا صوبته كويت وحتى هاي صوبته أرنتانو كلا حقوقها أنت هاي أرين الأضيق أنت ما فهمت معناها صوبته وح الربو إن تشارع أدون نقطة ما فهمت جست هذا أنا صوبته كويت وحتى هاي إن أوجادو سيدا ودرين أهم ما فهمت هذا نوان أوجادي ما فهمت إنك ما شاء الله ما شاء الله سوينا ما شاء الله ما شاء الله ninkii markii hore tumaannimo ku dheganayo gabdhaha tumaan buu ku islaaga hadda musharax buu noqday sida tan aad u sulweynina هذا فيري ميدا جرتو حتى هاي قفكم مركه خاركد way fiican tahay qalbigiisina waad moogtahay sababtoo anigu waan garanay ummadda Soomaaliyeed oo dhan afku waxay ka yihiin malabay ka yihiin laakiin uurka Allah waa calmo ma fahanteen horta qof kasta qulubtiisa waa saad sheegtay ilaahay baa daalacanaya laakiin xaqiiqadu siday tahay anigu tusma ahaan sidaan markii adi hortaabaan ugu sheegay daris Soomaali soo wiilasha Soomaalida way ii simay waxa weeyaan shakhsiyadooda kala fiican way kala ma aragtay quality wanaagsan yihiin laakiin ragga Soomaalidu waa isku mid weeyaan nin dheer ma jiro waxaan ku iri gabdhahayga iyo wiilashaydaba beeshay keensadaan baa anigu waan siin lahaa personality-giisa ma aragtay xukuumad ما ستين هذا كل سؤال maanta haddaad aniga haddaan maanta labadeenu isku faxaan lahayn oo aniga isoo shukansatona banaanay waa ku gursan lahaa gabdhahaygana waan ku dhisi lahaa hadal male taasi maron male ilaahay baana igaga sarreeyo ay maqla marka iyo qabiil kala saarkani iguma jiro waxa kaliya anu kaliya waxaan xukumaa wiil Soomaaliya oo gabadheedu daryeela wiil Soomaaliya oo gabadheedu waajibkeeda mariya bas ما شاء الله small boy waxay rusu gabar baa soo gashay chance aan siinayna si gabdhaha kalena u soo qabto adiga iyo Safiyo idin soo laabanaya Queen Zaima soo dhaw habar gosurre habrtay halo Muhammad shukaansi ku jirtaa ya ilaahay yaqaan اوكي معمد مشغول ويان طب كان سوق قبنيا إكرام بان سوق قبنيا waxay yiri suuga si dadka kala jaansaan u siiyan hal baan soo qabanaya marka Ikram baan ku xujinaya Safiyo call baa soo galsan u malaynayo accept okay إكرامي ها السلام عليكم عليكم السلام ورحمة ودوا هاي السلام يا كماش سهرا وان كا قادنay isagana uu ka qaado tumal boy habaryaray mid aan ku weydiiyay arintani hadda aan ka doodayna acbaar wad nala socoto waan daawanaysa sida u aragtaa wallahi arinta waxaan u arkaa wallahi waxa waaye arinta fiican oo laga hadlo because ma fiicno qofka inaad ku takortid ma aragtay qabiilku yahay waxaa fiican qofka diintiisa hadduu diin fiican leeyahay hadduu dhaqan wanaagsan uu leeyahay haddii ay Soomaali ay tahay uu qofku uu yahay intaas haddaa ka jeegirayso intaas buu ka nadiif yahay
dee wax kuu diidaya ma lahan diinta